wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah ee Galmudug Cabdinaasir Geelle Cilmi iyo gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha cusub ee wasaaradda qorsheynta Galmudug. mashruucan oo uu maalgelinayo Banka Adduunka qaybna ka ah barnaamijka horumarineed ee Biyoole ayaa waxaa ka qayb galay dhagax dhigiisa wasiiro ka tirsan Galmudug, agaasimaha guud ee madaxtooyada Galmudug, taliyaha qaybta guud ee booliiska Galmudug, agaasimayaal iyo saraakiil kale. halkan oo hore u ahayd guriga martida ayaa laga hirgelin doonaa dhismo ka kooban dhowr qaybood oo isugu jira xafiisyo iyo dhismayaal kale oo dhammaantood ay adeegsan doonaan howlwadeennada wasaaradda qorsheynta Galmudug. gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geedo Qorow ayaa kaga mahad celiyay madaxweynaha Galmudug go'aankan uu qaatay ee dhulkan loogu bedelay xarunta wasaaradda qorsheynta, taasi oo xusay inay qayb ka qaadan doonto bilicda magaalada Dhuusamareeb. dhismahan aan hadda joogno waa dhismo magaalada bartankeeda ku yaala. horey waxaa waagi hore u lahaa jiray guryihii martida ee waxay ahaayeen magaalada gobolka. markasta meeshii maaragtay markaas baahideedu taagan tahay ayaa waxaa loo bedelayaa meeshii markaas laga maarmi karo. marka madaxweynaha waxaan uga mahad celinaynaa inuu runtii uu dhismahan dhisa wasaaradda asagoo martidiina dhul kale siiyey oo yiri maaragtay oo muhiim ah loo dhiso. marka waxaan soo jeedinaynaa annagu haddaan nahay maamulka caasimadda dhul kasta ee maaragtay wasaaraddu soo dalbato miday hore u lahayd ay tahana waa la qabanaynaa. haddii mid kale oo maaragtay markaas ixtiyaajadu ay keento loo bedelayo ay tahana waa la bedelaynaa, waa la shaqaynaynaa. wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah ee Galmudug Cabdinaasir Geelle Cilmi ayaa ugu dambeyn ka warmay marxaladaha uu soo maray mashruucan, isagoo xaqiijiyay in hawsha dhismahan ay bilaaban doonto isla toddobaadkan. waxaan rabaa inaan marka koobaad sheego barnaamijkan sida aad la socotaan iyo dhismaha wasaaradda qorsheynta waxaa naga saacidayo oo hawshan nala qabanaya Banka Adduunka oo muddana aan soo wada shaqeynayna projectyaal kala gedisan kana uu yahay qayb kamid ah oo lagu dhisayo wasaaradda qorsheynta. sida aad la socotaanba in dowlad goboleedka Galmudug waxa uu xoog saarayaa wasaaradda qorsheyntuna ay hormuud ugu tahay in institutionskii iyo hay'adihii dawladda loo dhiso si shakhsiyadeed iyo si dawladnimo iyo si physical labadaba intaba oo dhismayaashii iyo dadkii wada dhisan la wada helo. tanuna waxay qayb ka tahay maaragtay arrimahaas lagu dhisayo wasaaradaha dowlad goboleedka Galmudug. qaar hore oo la soo dhagax dhigay haddana meel fiican maraya oo wasaaradda qorsheyntu ay wasaaradda waxbarashada ay kamid tahayna waa jiraan oo waa soo aragteen. dhismaha xarunta dhexe ee wasaaradda qorsheynta Galmudug ayaa qayb ka ah mashaariic si isku mid ah bishan gudaheeda uga bilaabmaya magaalada Dhuusamareeb oo lagu hirgelinayo qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha Galmudug, waxaana adeegan uu qayb ka yahay tayeynta howlaha wasaaradaha. Cabdullaahi Warsamaro, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.